haddaa ahaanayd kama qof xirxirin oo xataa aan aqoonin si dadka loo dhex galo ayna ku gaarsiiso ilaa heer dadka oo dhan aad ka dhex baxdo oo kelinimo inaa ku noolaato aragto laakiinse maalin maalmaha ka mid a oo soo baxo qof ku baraayo dadka si loo dhex galo xataa farxad wixii taa ku baraayo qofkaasna inta ku imaado oona ku dhaho waxaa rabaa inaa cuno bankariyaaskaaga waxaa isweydiinaynaa labadan qof xiriirkan oo saa u weyn oo dhan samaysanayaa waaye waana maxay bankariyaaska la sheegayo waxaasoo dhan waxaa ku ogaa doonaa sheekadayna soo socota insha allah daawad haddaa tahay dadka aan aqoonin si dadka loo dhex galo waxaa ogaataa dee sidaas ay tahay sheekada in adig kugu socto aan waxna ka barato si fiican ugu faa'iiday insha allah ila soco oo keliya yarkan magaciisa waxaa lagu magacaabaa Haruki waa arday iskuulka maraya secondary oo noloshiisa dhan iska degan Haruki ma jecel dadka inuu dhex galgalo sidoo kale ardayda xataa inuu dhex gal ma jeclo sidaas ay tahay ardayda xataa ma rabaa inay dhex galgalaan si xataa wuxuuna aad u jecel yahay buugaag akhrista badanaa library oo tagaa buugaagta u akhrisada soo waqtigiisa uu qaato Haruki badanaa waqtigiisa wuxuu ku qaataa saas maalmo buugaagtaas ka akhrisada library to tago markay xiisada u dhamaato wallaahi waa nolol kelnimo ah sidaas ay tahay Haruki ma kuxma waan iska qanacsan yahay waxaa dhacay maalin maalmaha kamid Haruki wuxuu aadaa isbitaalkaas oo wax uu soo baahdo oo meel iska fadhiyo buugaagtiisa iska akhrisanaya oo jaanku kala ma sigoo meesha iska fariyo geeskiisa oo arka buug meesha yaalo oo meesha ku dhacayo buugaas uu soo qaado uuna aqsana buuga markuu kala furo wuxuu arka ciwaankiisa inuu yahay noolashada dhimashada Haruki wuxuu bilaabaa buug inuu si dabgalo oo arka qofka xasuus qorka uu qoran yahay meesha inuu cudur xun oo dhimasho ah bankariyaaska ka haayo cudurkaasna oo ku dhiman kara xilli walba aan daawo aan lahayn Haruki taas markuu arka aad u naxaa bankariyaaska waa xubin bini'aadanka aad u muhiim ah oo jirka bini'aadanka ka tirsan wuxuuna kala saaraa sokorta iyo cusbada haduuna meesha cudurkaaga dhacna aad halis u tahay oo daawadiisa lama helo muhiimadeena marka uu soo laabana Haruki inta buuga aqrinayo waxa uu maanaa qofka markiila buuga iska lahaa xasuus qorka waxayna ahayd gabar lagu magacaabo Sakura waxay leedahay buuga ma aqrisay buuga waa xasuus qorkayga dhimashada waxa qaba cudur aad u xun oo xilli walba aan ku dhiman karo isbitaalkana daawooyin ilaa muddo aan ku noolaan karaa ka qaataa xanuunkayga xasuus qorkayga oo waxay ku qoran yihiin buuga Haruki wuxuu leeyahay ma intaasa oo kibaaya caadi waa ka sii tagaa gabadhu way yaabay waxay la yaabantaa wixii dhan caadi ugu dhigaba ma banaxin ba xataa ayadana markaas way ku qoslee asana iska tagaa waxay leedahay dabeecadiisa sida xataa u xun maalinta xigtaas iskuulkiisa iska socdo jidka iska maray wuxuu arkaa iyada jidka ku sugaysa oo salaamayso asigana waa iska ignore gareeyaha jidka kale oo kale xaa ayadana waxay egtahay inay dhahayso anama ka haraya dajadu u leexato ayadana intay ka damaato waxay leedahay jirada ee saqaf dhan oga aan qoyskayga ahayn ata asxaabta isku galaaska aan xataa ma ogaan sidoo kale xataa macallimiinta qoyskayga markii laga soo gudbo qofka kaliya og waa adiga sidaas daraadeed waxaan ka rabaa sirteeda in qof dhan la wadaago sigana wuxuu leeyahay waan ka qaata qof dhan la wadaagayo qofna aan la wadaagana ma qabo Sakura markaas waxay leedahay way laakiin hadda sirteeda ogaato qorshaan ku haya ka war waqtiga badan hadda adiga kula qaato maadaama asxaab dhan aan lahayn waqtiga inta dhiman ka hor hadda adiga kula qaato si waa aragtaa sigana uu ku diiday wuxuu leeyahay tan noloshaada waa waxa arta sameeyada jooska iskale idin waxay leedahay waayaan kumeyn markala asarkaya wayna ka sii tagay Sakura waa gabar iska furfurno habi ah laakiin sawirka waxay aragtay inuu xilxirin yahay saddeed badan inay ku dhawaadabta wadahadalkooda markii isbuuc laga soo wareego Sakura waxay u booqanay library si Haruki u caawiso waana library oo marba asiga ka shaqeeyo ayaga markaas hadalada isla dhaafsan Sakura waxay leedahay kawar anigu waxaan rabaa inaan wax sameeyo waxaan rabaa wax walba aan jeclahay inaan sameeyo oo cusub buugiga xasuus qorka kawaran da meel walba isla aan afar walba aan soo qaataan ku xusa kawar buugiga xasuus qorka Haruki markaas was adkeenaysa wuxuu leeyahay wax walba adiga ku qosaysa waxa jecesha adiga sameeyo ama aan saaq sii gelinay Sakura markaas waxay leedahay waxay shoonay miya waliya gabar meel ku mara aan saadreeda halkaas leedahay laakiin si adkii kartid meel walba iraacan ku dhawa iraaqay Haruki hadalkeeda madaxdeega ku dhigeysana wana ka yeela markaas maxay go'aansanayaan maqaayad inay ka soo cunteeyaan kadib jidka soo laabashadooda ay ku jiraan waxay arkayaan in duq waayeel foodeenay alaabtooda ka daadinayo jidka hada ka bedelan ka war inta ka bixinahay laakiin Sakura ma yeelis way soo dhaxgalaysa duqdo caawiso ninka Sakura inta ku dhigo wuxuu leeyahay maxaa ka qadanaya dibna dadka meesha jooga inaan ku soo baxayna hata sidoo kale waxa la waca askar Sakura markaas buuqaasi ka faa'iideysan inta si darbe wuxuu u gelinay mustaqbalkiisa oo dhan meeshaas ma la iskaga dhuftahay askatoon markay imaadaan ninkii qabanaya Sakura wuxuu la cararay Haruki wayna ka soo baxsanaya meesha markay ka soo baxsanaan waxay galayaan meel koofi ku yaal meesha markay galaan waxay dalbanayaan koofi si wada hadal ugu qaataan markay wada hadalkooda u dhamaadana Sakura waxay ka dalbanayaan Haruki inuu markiisa siiyo maalinta ku xigta Haruki wuxuu aadaa iskuulka markaas wuxuu kulma galaaska oo dhan asiga iyo Sakura xiriir ka dhaxay ka hadlayaan gabdhaha ma ku sugan waxay leeyihiin ninkaas caajis looga Sakura xiriir la yeelata maxaa ka qaldan ayada waa nin cabsi badan asna noloshiisa kali ah hadda ninkaas ma soo jeclaatane wallahi dadka qaar waa dad edeb daran Sakura maalinta xigta wuxuu Haruki ugu tagay library ayna ka dalbanay mar kale in israacaan laakiin Haruki uu ku diiday ayadoo iska beer jileec laakiin Haruki uu dambeyn u yeelaa waxay isku raacayeen meel xalwiyaadka iyo waxyaabaha macaan laga cuno meeshaasna ay joogo waxay kulmayaan saaxiibadii Sakura oo aad ugu dhow magaceedana waxa lagu yaqaanaa Kyoko shakalkeedu waa iska cadaan macajin xaaladan lagu jiro haweeney Sakura wada doodoodan ka bacdi way sidii asxaabteeda kale raacay markaasna Haruki iyo Sakura cuntada markay dhameystay waxay sii aadeen dhanka xeelta si xaq waqti u qaataan Sakura markaas xaqiiqada oo Haruki u sheegay sababtay asiga u dooratay ee u rabtay in marwalba asi waqti la qaadato waxay leedahay qofka kaliya nolosheeda dabiici inaad tahay dareensiinaa adiga oo kaliya waalidiinteeda marwalba waxay tusaan dareen kala gacayl ah ay marwalba inay iga naxaan laakiinse kama arko inay si caadi ah dhaqmaan hadana asxaabteeda la wadaagi lahaa ayaga xataa sidaas ay dhaqmi lahaayeen way igna nixlaayeen marwalba wajigooda kama arkeen farxad waqti u qaadanayaan laakiinse Haruki adigu waa ku duban tahay waxay dareentay nolosheeda inaad dabiici tahay
marmarka qaarna waxa uu qaataa inaan xanuunsanin aan jirnin sidaas daraadeed waxaan ka dalbana adiga oo kaliya inaan waqti kula qaato Sakura way ku jirtaa maalin oo inuu xanuunka dilay sidaas ay tan waxay rabtaa wajigeeda maalin aan keen inuu fahad ka muuqdo Harukiina hadalkeeda uu yeelaa si awriyadeed u rumeeyo subax maalin Sakura waxa ay Haruki si dalxiis isku raacaan meelo badan oo qurux badan ay aadaan oo waqti fiican oo qurux badan ku qaadanayaan Sakurana hotel meelaha kalmida kaarka jaraan si habeenka ugu dhaxaan akiisa qalas Sakura ka dhacay daraadeed hotelka meesha laba qol soo jar leed waxay soo jartaa hal qol akiisa waxay leedahay waa caadi qolka waa isla wadaagayeen habeenka inta lagu jiro waxay ciyaarayaan turub ciyaaro fara badan Sakurana waxay ka muuqataa shaqadeeda inay aad u faraxsan tahay waxay ka dalbanay boorso inuu soo qabto say waxay rabtaa inay ugu baxsato laakiinse markuu boorso soo qabro wuu furaa wuxuuna arkaa daawada wax aad kaaga naxinaya boorsadu wax ka buuxo oo kaliya waa irbado kaniiniyo wax walba daawalba la isticmaalayo Sakurana inta jiifna ka hor Haruki waxay ku leedahay hadaan ku dhimashada waa ka cabsana ma sameynay Harukiina daawooyinka arko soo xasuusana wuxuuna dhahoweeyaa kasna labadooda sariirta geesaha kala jeefnaya ayagoo hal hadal isdhaafsanin maalinta xigta labadooda dalxiiska ka soo laabanaya Harukiina wuxuu ku maasaa saaxiibadeeda Kyoko oo digniin siinayso waxay ku leedahay mar dambe Sakura agteeda kuma arki kara hadaan ku arkana meel ku saara Kyoko waxay sidaas u sameynaysaa cabsi ay kaga qabta saaxiibadeeda oo kaliya markaas kadib Sakura iyo Haruki ayagoo laabi wada hal ku qaadanaya waxay leedahay da guriga Iraada ka waran saabuuk ku soo siiyo inay isku raacayaan gurigan game ku dhidheelayaan ayuu isla jooga hamar isfahan waa ka dhaxay Harukiina guriga waa soo tagaa guriga hortiisa soo kasoo baxay Haruki wuxuu ku maasaa Sakura xkeeda hore wuxuu adiga meeshan maxaa ku keenay ayagoo hadal isla dhaafsanaya hamar intuu ninka soo heedo Haruki feer u gelinaa Sakura markaas Haruki soo dabgasho waxay ku arkay meesha dagaalka ka jiro wuxuu u tagay Haruki si uu caawiso ninka intuu masir wuxuu leeyahay adiga ninka marwaba maxaa u dub soctaa Sakura tii xanaaqday waxay leedahay waxba kaama gelin adduunka ku necba marda wiilkan tag soo agdhawaatay wiilak wallahi qacay ka yeersiisay Sakura markaas Haruki u tagay waxayna ka reelgelin isfahawaagi dhibaatada dhaxmaray gabadha intii aad u oyso waxay leedahay waa ku bariya qofta nolosha qiimaheedii macaanteeda hada intuu soo adiga waa ku bariya intaan dhiman ka hor leh waqti ila qaado wallahi waa laxda aad u murug badan Haruki waa ku yeelaa wuxuu guriga ugu raacay buuga ee siilay u soo qaato balana waxay ku soo wada qaadanayaan inta nolosheedu an ka dhiman inay soo socdaan sidaasna maalinta xigta waxay isku raacayaan meel walba ee Sakura eerto si wax walba ay jecesha u sameeyso Sakura markii buuga xoos qorka dhameysto waxay ku laabanay isbitaalka markaasna Haruki message soo diray wuxuu sheegay in isbitaalka laba isbuuc uu haray soo bixitaankiisa uu isbitaalku soo booqday inta xusooyinka bilaabay Harukiina soo walwalsan oo wadnihiisa garaacaya oo maana saaxiib yar mujadi wiilkii shuuciga ah oo shibana ah maanta inuu emotional noqday asigana marka gudaha uu galo waxay ka dalbanay inay game dheelaan gamekaas oo ku saabsan inuu qofka laga guuleysto qofka kale su'aal weydiinayo siga ka guuleysanayo wuxuu weydiinaa su'aal wuxuu leeyahay Sakura nolosha aad qiimaheeda maxay tahay yani nolosha xaggaaga saa u aragtaa ayaduna waxay leedahay maxaa waa su'aashan surprise iga dhigtay laakiin saxoogaa way adag tahay waana fududahay dhib ma laha nolosha sida tahay weydiiso maahan waa kaaga jawaabaa waxay leedahay nolosha waa dadka in xiriir la samaysatid oo qof walba wuxuu danaynayo ogaato qof walba wuxuu jecel yahay inaa ogaato si qofkaas xaqiisa qiimo weyn ugu yeelato nolosha micnaheeda markaas ay qiimo yeelanay in qof dareemaha ku saameyn karto in qof dareemaha ku jeclaan karto in qof dareemaha ku nici karto in qofka agdhowda daraadeed in farxad ku dareemi karto in qof gacanta ka qabsan karto si shucuurta u kala wadaagtiin waxaas oo dhan waa nolosha tiirarkeeda oo dhan sidaas ee nolosha qiimaheeda iyo macaanteedaba u muuqataa saaxiib ya Sakura jawaabta ee bixisay waa jawaab sax ah laakiin anagu ka muslim ahaan waxa tiirkeena koowaad noo ah inaan Ilaahay caabudno oo cibaadadiisa ku tirsanaano laakiin waxa ogaataa Sakura mid ay sheegtay in nolosha ka mid tahay oo muhiim ay tahay Sakura waxay leedahay dadka dhaxgalina oo kaliya tahay dadkaas aragtidooda waxa ka tahay qof aan jirin oo adduunka aan ku sugnayn xiriirka dadka aan leedahay ayaa ku cadeynaya inaan nooshahay si dadka hadaladeed u saameynaya ayaa i cadeynaya maskaxdeeda inay joogto jirkeyga ama jismigeyga inuu jiro waxay cadeynaya dadka sida ay taabanayaan nolosha macnaheeda markaas iimaanay sida hadda goobtan ugu sugnaa oo kale wallahi waa hadal dareemahaaga taabanayo daawada Sakura hadalkeeda aad u saameeyay laakiin waxa rabaa inaan wax yar kula wadaago waxa ku sheegay in adduunyada iska yarta oo naftaan xilli walba ay bixi karto haddaana ka faa'iideysan oo dadka aan jecesha adduunka inta ku sugan yihiin waqti ala wadaagin waxa ogaataa inay imaan doonto maalin aan ka shalay doontaa dhihi doonto inuu maxaa waqti uun qaadan waayo dadkaas aan ku sheegayna waxa kamid ah ehelkaaga muhiimadii marka usoo laaban Haruki hadalada Sakura ay dhisa oo dhan aad u saameysay wuxuu ku leeyahay runtii adi maalinta ku bartay ilaa hadda waxay baraysaa waxyaabo badan aan aqoonin ayadana waxay leedahay ma hadalkan surprise iga dhigto iga xijoosisay wuxuu leeyahay maya dhawa ka hadla tasmo ka mahadcelina habeenka markii la gaaro way israacayaan si bulweer ka wada loorida ay soo daawadaan Harukiina asoo Sakura dhimashadeeda ka warwasay wuxuu leeyahay adi waa dhimanaysa soo mahan ayadana si kaftan waxay leedahay waa dhimanayna soo walba caadi way taas labadiina xataa dhimanayna asiga wuxuu leeyahay taas kama hadlayo meesha ka hadlayo waa cudurka ku hayo ayada waxay leedahay cudurka bankariyaska iyo hada ka hadlay si walba ogtayna ku dhimanayo asigana hamar gacanta ugu dhigo wuxuu ku leeyahay aniga inaad dhimatid marow aadan kaaga walwalaya Sakura markaas tay farxday waxay leedahay waa qof faraxsanahay adaab yeelato dareen qof aw walwalaysid laakiin saxabaha ka walwalin intaad iman ka hor ana ku soo igeysinay markaasna bulleerka waqtigooda ku qaadanayaan subax markii gaar Sakura isbitaalka ka soo baxay asigana message wuxuu u rabaa meesha koofi ku abayn inuu ku sugan yahay sidoo kale wuxuu rabaa message kale inuu u diro oo u taagan xiriirkooda micnaha uu yahay markaasna weyna wax ka fiican aan ahayn waxa rabaa inuu cun bankariyaskaaga message-kaasna wuxuu ahaa message-kii u dambeeyay oo Haruki Sakura u diro halahaas muddo wuxuu iska sugayay goobta koofiga inuu u maato laakiin sama dhicin inuu ugu maato Harukiina asoo murugsan xafiiskaada asigoo iska niyijabsan oo Sakura aad u walwalsan wuxuu fiirinaa TV-ga ma ku fiiriyo wuxuu arkaa gabadh 12 jir oo ardaya oo Sakura loo magacaabo inay geeriyootay
naxtintii u weyneed aan la qiyaasi karin waxa ka sii naxtin badan waxay tahay caadi uma dhimanin in dilaaya dhabarka midi ugu muday wallahi harki heer wuxuu marway naxtin daraaddeed neefta ku dhigrabto yacni qofka maanta dhan ay ka warwareysa ka war cudurka dilaaga ee qabta daraaddeed ugu dambeynna si shil ay ku dhimato wallahi waa xanuun ahta loo adkeysi karin waayo harkiina waxa uu sameeyay galmaayo asoo qolkiisa u socdo janjarada ku akufaa tabartiyaana ka dhamaatana aad uu ooyaa waxaa imaanaya maalinta janaasadeeda waxaana kasoo qayb galaya ardayda oo dhan ilaa aana ka heen harkii wuxuu ka doorbideen guriga jooga muddo 10 bari ah inta janaasadeeda imaalahay qolka isku xir hal qof mala hadlin xataa hooyadiis abiis xataa maalmo markii laga soo wareegay wuxuu aadaa gurigeeda si hooyadeeda ugu soo tacsiyeeyay hooyadeedana waxay farta ka saaray buuga xusuqorkeeda xeelada ay sakar way ka sheegtay waxayna dhahday marka inta kadibna buugeeda xusuqorka ay farta ka saaro harkiina buugeeda xusuqorka qabana woona aqrinaa wuxuu arkaa inuu ku qoran yahay wixii waqti ay soo qaateen oo dhan harkii wuu naxaa laakiin dareemihiisu celina si buuga u sii aqriyo harkii buuga sii aqrina wuxuu arkaa beejka u dambeeyay waxba ku qornayn laakiin hooyadeeda waxay dheesay gadi wali waxa ku qoran harkii beejka ugu dina wuxuu arkaa intii dhiman ka hor in message u raabtay message-kana markuu aqriyo wuxuu dareemaa in ayda la joogto oo kale message-ka ereyga u dambeeyna wuxuu ku arkaa ereygii xiriirkooda micnahooda u taagnaa oo ah message-kii u dambeeyay uu diray ereygaas oo ah waxa rabaa inaa cuno bankariyaaskaaga wuxuuna sii xaqiijiyay message-kii u dambeeyay ereygaas ah inay aqrisay wallaahina waan aqrisay harkiina soo murugsano aad u ooyaa waa alo xumatii uu murug badnay noloshiisa soo marto waana marka uu horeyso oo qof u ooyinayo wallaahi waa xanuun aad u murug badan markaas kadib harkii wuxuu isku dayaa noloshiisa dabiiciga sidii ahayd inuu soo ceshto laakiin wuxuu dareemaa inuu soo ceshi karin oo aan qofkii shalay u ahaa inuu ahayn maanta harkiina markaas soo meesha ku fiijiyo wuxuu wacaa saaxiibadeeda qaaliga ah Kyoko waxay leedahay intaas muddo waqti kula qaadanaysa sidaas ay tahay janaasadeeda ma imaan waxa aniga iyo soo wacay wax saaxiib laga dhigtam tihidir sigana wuxuu leeyahay SDG ee buugan aqriho Kyokona markay buuga aqriso waxay arkay wixii dhamaay oo dhan aydan aad u ooyay wuxuu leeyahay inta si shil u dhiman waxay qabto cudur dilaa oo xilli walba ay ku dhiman karto qofka kaliya ee la wadaagtan waa aniga sidaas daraadeed ana kaliya waqti la qaadanaysa Kyokona markay taas ogaatay murugteeda aad u sii ziyaaday waxay ku shalayna aydan maxay waqti u la qaadan weysay markaas kadibna Haruki iyo Kyokona saas ay asxaab ku noqonayaan maani alaakiina qabrigeeda boqonayaan qisadeena qurux badneed oo aad u murug badneed meeshaas ay nagu dhamaanay qisadan waa qiso oo anigu aad noo qusaysoona wax badan aad ugu faa'iidnay daawad hadda qisadan aad kaaga murugsiiso aad ku saameysay dareemahaaga macaanta badan dhanka commentiga noo wareeg sidoo kale qisadan waa qiso wax badan laga faa'iiday hadda wax ka faa'iida dhanka commentiga noo wareeg hadda aniga qas ahaan fikradeyda qisadan ka dhiibto daawad waxaan ku sheegaa mar walba inta dukaan ku sugan tahay inuu qof noloshaada bedeli karo sidoo kale waa inuu waqti la qaato dadka noloshaada aad kugu dhow oo adiga aad kugu danaynayo oo ogid xiliga imanaysa laakiin sareeba xasuus macaan oo dadka aad jeceshahay kugu xasuustaan waana ku mahadsantihiin qisada macaan u dhameysteen daawad hadda qisadan ka heshay waxa ogaataa inuu jiro qisooyin kale oo sidan oo kale u macaan si aad soo badan kaliya waa in jarka kor ugu qaadin oo meel fiican aan gaarsiisin hana naga iloobina subscribe-ka iyo like-ta iyo gambaleerka si dhiirigelin ugu noqoto magaceygana waa Cabbaas iyo Janarka Cabbaas Mbay nabadgelyo